waxaa loo baahan yahay maadaama aan nahay dhalinyarta magaalada Beledweyne inaan martidaas qaabilno oo martidaas si sharaf leh qiimo leh qadarin leh aan ku qaabili doono insha Allah sidoo kale waxaan rabnaa qof kasta oo reer Beledweyne ah inuu u istaago sidoo u soo dhaweyn lahay martidaas faraha badan ee ku soo wajaan magaalada Beledweyne dhamaanta waxaan nimaadnay qabanqaabada iyo isku dabaridka stadium Laqayo maanta waxaanu ka shaqeynaynaa garoonka weyn ee Laqayo Stadium halkaas oo loo qorsheeyay in lagu caanashubo ugaaskeena ugaas Yuusuf ugaas Xasan ugaas Khaliif halkan waxaa ka socoto shaqo culus dhalinyarada gobolka hadaan nahay isagoo na hogaaminayo gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Hiiraan Maxamed Cabdullaahi Daahiye waxaanu ka shaqeynaynay maanta iyo maalmihii la soo dhaafayba nadaafadda guud ee garoonka halka ganacsatada iyo sidoo kale ragga waaweyn ee magaaladuna ay ka shaqeynayaan qurxinta kaleeto iyo hoolkii loogu talagalay in martida lagu soo dhaweeyo diyaarintiisa ayaa iyaguna ku guda jiraan cid walba oo reer Hiiraan ah gaar ahaan cidda ugaaskan ku caanashubanaysa waxa looga baahan yahay in ay sameeyaan isxilqaan qof walba halkay kaga beegan tahay hawsha bilicda garoonkan oo kaleeto soo dhaweynta martida magaalada oo kaleeto in ayna sidoo kale loo diyaariyo inay martida soo dhaweyso qolo walba waxa looga baahan yahay in ay qaadato kaalinteeda dhalinyarada halkan imaatay oo ka qayb qaadanayso nadaafadan ayaa qaarkood waxay la hadashay kaamirada Abwantatiko sidoo kale gudoomiyaha ururka dhalinyarada ayaa halkan isaguna nagula hadlay oo noo soo jeedinaya sida dhalinyarada ay muhiim ugu tahay hawshan culus in ay kaalintooda xoog leh ay ka qaataan wasalaam ay qof walba Soomaaliya meeshiisa maqaamkiisa ku salaami doona insha Allah waxaan ka mid ahay dhalinyarta magaalada Beledweyne waxaan u diyaar garoobeynaa anagoo wiilal iyo gabdho ah inaan diyaarino meeshii ugaaskeena lagu caleema saari lahay oo aan u diyaarsanahay salqaanna aan ku qaban doono waxaan dhiirigelin doonaa dhalinyarta magaalada Beledweyne inay ka soo qayb qaadato meeshii ugaaska sababtay tahay waxaan noo soo socota marti badan oo aan isku diyaarino waxaan ku jirnaa nadaafada wax yaraan noo dhiman inta noo dhiman insha Allah nagala qayb qaadato waa soo dhaweynaa dhammaan dhalinyarta magaalada Beledweyne waa mahadsantiin hadina saxaafada waa u jeeday meeshan dhalinyaradii magaalada Beledweyne oo horkacay gudoomiyaha ururka dhalinyarada dhamaanta waxaan nimaadnay qabanqaabada iyo isku dabaridka stadium Laqayo taasoo lagu duubi doono ugaas Yuusuf ugaas Xasan ugaas Khaliif marka waxaan u diyaar garoobeynaa soo dhaweyntii iyo qabanqaabadii garoonka iyo dhamaan sidaan dhalinyarada gobolka nahay bilicda ugu qayb qaadan lahaynay u diyaarin lahaynay meeshii martida iyo dadka lagu soo dhaweeyay marka waxaan rabnaa dhamaan dhalinyarada iyo dadka magaalada ku nool in loo soo diyaar garoobo soo dhaweynta cididii maqan oo saaka waxa idin soo dhaweynaysa ma jirto xoog lagu xisaabtamayo waa dadkaynaan intaynaan iyo inta magaalada jirto waxaan u jeedaa saaka xoogaa muuqaalka inuu yahay war wixii la isku hayaa waa gooni laakiin kan waa ugaaskii beesha waa ka madax banaan yahay waa sandaqadii ugu sareysay ummadaanu hoos harsaleed marka waxaan rabnaa dhamaan dhalinyarada inaan la isku soo baxo la weyneeyo maalmahan loo diyaar garoobo si garoonkani aagani dhulkana u nadiifilayna hadaana anigu aan isku soo bixin amaanta amaalintayna aan wareeysan martida noo imaan doonto hal raba si aan ku soo dhaweynayn meel u wanaagsan oo bilicdeeda iyo soo jeedkeeda noqonayso inaan la helo hadaan dhalinyarada gobolka Hiiraan waxaan maanta isku xilqaanay inaan hagaajino meesha lagu caleema saari lahaa ugaaskeena qiimaha badan ugaas Yuusuf ugaas Xasan dhalinta gobolka nugula noolna waxaan leenahay anaga isku xilqaana adinkan isku xilqaamo maanta oo taariikhda tahay bisha 7 ee May waxaan joognaa xarunta oo ka dhacayo ugaas duubka ugaaska Soomaaliyeed ugaaska Xawaalle oo ka dhici doona 13 bisha May maanta waxaan u imaanay urur dhalinyaro ahaan inaan maanta ka qayb qaadano kaalinteena oo ah inaan soo buuxino inaan qayb kamid ah nadaafadii aan maanta qaadano sidoo kale waxaan ugu mahadcelinayaa guddiga hawsha wada oo ugaas duubka ayagana kaalintoodii mug lahayd wado sidoo kale waxaan rabaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ama gaar ahaan shacabka reer Beledweyne inay qof walba kaalintiisa ka qaato waayo qof walba kaalin uu ka leeyahay kaalinta waxaan rabnaa in qof walba uu ka qayb qaato soo istaago nadaafadan iyo bilicda iyo maxaa la soo dhaweynta martida imaanaysana inay ay ka qayb qaataan sidoo kale waxaan rabnaa qof kasta oo reer Beledweyne ah inuu u istaago sidoo soo dhaweyn lahay martida faraha badan ee ku soo wajaan magaalada Beledweyne sidoo isku xilqaami lahay sidoo uga shaqeyn lahay amniga iyo nadaafada iyo bilicda goobta oo ka dhacayo ugaaska duubkiisa
iyo maxaa la dhahay iyo martidaas inayna dareemin caajis iyo wax walba waa mahadsantihiin